بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka alla u gaar yeelay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh salaan dabadeed barnaamijkan aan isugu imaanay halkan waa ku dhawaaqista urur siyaasadeed lagu magacaabo Samo oo marxalado kala duwan soo maray horeyna u jiray balse dadkii aasaasayasha ahaa intoodii badan ay dhinteen sidaas darteedna dadkii haray ay ka caajiseen Samo waxa lagu yaqaanaa layskii caan baxay ee sanka leertiisa ka leexo sama soo socotay dadka waxa inagala jooga oo goordhow ina soo gaari doona xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo kamid ahaa halyeeyadii Samo ururka Samo wuxuu soo maray marxalado kala duwan waxaana la aasaasay sanadkii 1989kii wuxuu si rasmi ah u howlgalay 1991kii waxa lagu bilaabay Somali Agricultural Muki Organization wuxuu ahaa urur markaasi ahdaafta laga lahaa ay ahayd in dadka la isku yiraahdo jararweyne ee qowmiyadda jararweyne kamida dadka Soomaaliya degan ee iska leh in loogu adeego muddo kadibna waxa laga bedelay magacii oo waxa laga dhigay Somali Africanist Muki Organization dadka qaar Muki ma yaqaanaan inaan fahansiyaan rabaa Muki waxa la yiraahdaa geed caan ah oo meelaha jareertu ay degto kaliya ka baxa meelaha kale kama baxo wuxuu Muki ka baxa inta badan wabiga dhinaciisa ayuu ka baxaa geedkaas maadaama astaan uu ahaa ayay u adeegsanayeen inay magacaas qaataan maanta marxaladda uu joogo ee 2022 oo noociisii saddexaad ama isbedelkiisii saddexaad aan halkan uga dhawaaqaynana waxa laga dhigay Somali Agricultural Motivators Organization dadka qaar macnaha oo waxay ku wareereen oo ay u qaateen in urur beeraley uu yahay laakiin waxaan rabaa inaan sharaxaad ka bixiyo qofkii Ingiriisi qaana uu fahmaya Somali Agriculture ma aha waa Somali Agricultural Motivators Organization marka la Soomaaliyeeyo wuxuu noqonayaa ururka dhiirigeliyaasha dadka beeraleyda ah Soomaalida waa laba nooca saddexaadna waa la isugu tagaa nooc waxa loo yaqaanaa beeraley noocna waxa loo yaqaanaa xoolo dhaqato geeley iyo beeraley waa Soomaalida nooc la isugu tagaa jiro kalluunka ah beeraleyda waa jareertu oo kaliya xoolo dhaqatadana waa jilaada oo kaliya hadda waa la isugu soo wada galay labadii dhinac waa la isla walaaqdaa waxa la isugu tagi jiray markii hore kalluunka oo labada dhinacba ay wada ka wada manaaficsan jireen laakiin